waxaa la socotaan dalkeena xaaladda uu ku jiro xaaladdaasoo ah weerar indhacadays ah ee nagu soo qaadeen yahuudda caalamiyadda ah oo doonaya dalkeena inay kala gooyaan oo dalkeena ay geliyaan dagaal caalami ah kuwaas oo ku dhaqaaqay tallaabo ka soo horjeeda qawaaniinta caalamiga iyo shuruucda duwaliga marka annagoo diidayna go-aanka yahuuddu ay qaadatay oo ku saabsan cilaaqaadka beenbeenta ah oo ay la gashay qayb ka mida Soomaaliya annagoo diidayna culummo ahaan ayaan waxaan doonaynaa inaan ugu baaqno culummada Soomaaliyeed ee dalabato cilmiga macaahidda dhigata ee maraakista dhigata madaarista dhigata berri insha Allah Arbaca oo bisha January ay tahay 7 bisha Rajabna ay tahay 18 waxaan ugu baaqaynaa dhammaan culummada Soomaaliyeed iyo dullaabo cilmigu inay iskugu yimaadaan isu soo bax lagu taageerayo midnimada dalka laguna diidayo kala goynta dalka iyo weerarka cad oo yahuudda nagu soo qaaday oo dalkeena ay ku kala goynayaan soo baxaas lagu qaban doono daljirka dahsoon berri Arbaca insha Allah taala markay tahay saacadu 7 ama halka saac subaxnimo insha Allah taala halkaas oo la doonayo in culummada Soomaaliyeed gaar ahaan iyo ardada diinta barata oo macaahidda dhigata iyo dhammaan qofka iimaan karo dhan inaan ku muujino san u diidanahay go'aanka noocaas oo kala ah iyo tilaawadaas foosha xun oo faragelinta ah oo kala goynta ah oo dhaawac weyn u geysanaysa deganaanshaheena iyo waartinimadeena Soomaaliyeed iyo isku xirnaanteena marka in la yimaado oo shucuurka la muujiyo ayaan meeshan dadka ugu yeeraynaa waana shucuur waajib in la muujiyo oo dalkaaga midnimadiisa in la difaaco in cadowga soo weeraray laga celiyo in xaqaa'iqda adduunka la tuso saan u diidanahay tallaabadaas ayaa laga maarmaana marka adduunku wuxuu sugayaa shucuurkeennay sugayaan dadku dowladdeena taageeray iyo kuwana taageerahaya shucuurkeenna iyo dareenkeenna inay arkaan ayaa la rabaa marka waxaa inoo balana berri insha Allah Arbaca ah 1 saac subaxnimo iyo daljirka dahsoon culummo ahaan iyo dullaabo cilmi ahaan iyo dhammaan qof kastoo imaan kara waana camal islaami ah oo watani ah oo diini ah oo waajib ah